السلام الله عليكم أصحابتكم وحنا جانا الكسور دوادا ومركا لي مقال كله ما أنتوا حندونا هنا ندي لو ذاقون مقال آد عجيب لعقتنا وجهتان ويورو جي بي واي هدبا أنت عين شرحات دقلين هدبا هدي أي تمركي كوغوري سيصوبا وقت جنالك لا جريس sidoo kale intoodna muuqaalka subscribe saar halkan waxaan doonayaa inaan kugu wadaago istaraatiijiyad cajiib ah oo ah smart money oo habka loogu trade gareeyo forex-ka sidoo kale intoodna waxaad uga trade gareyn kartaa IQ option-ka qaacdadan waxaa lagu magacaabaa ama aan ula baxay power 4 strategy haddii aadan macnaheeda sida saxda aadan u aqaanin waxaan halkan ku dhigi doonaa muuqaal aan si waadax ah uga hadli doono إن شاء الله سوقا وحن صفر نهاية هذا جارتيغان يورو جي بي واي وانا 5 minutes هذا بقى هدي عرفتي إن تبغى استعماشيد وحلاقة ربع أما لقى مرمانا إن أتصفر تيد M5 أما 5 minute chart سيادو غاتي دايركشن كسوق وآدي دونو دقيقة ده حسوس عدا هذا بقى هل كان مركي يعني إيمان سوقي مركي عن سيدنا نوارجني سوق وكجرا حالة consolidation لكن وحاهوانتيا إنه إمادي liquidity هل كان red candle ama akhtarka candle-ka macnaha horizontal line kan akhtarka ah waxa hoostiisa aan ku qoray ama falaarahaas hoose hoostooda aan ku qoray liquidity resting here markii aan aragno liquidity waxa suuqa soo geli doona daqiiqadaha soo socda buyers haddii uu suuqu down trend u socdo uu gaaro meel liquidity ah waxa hubanti ah in buyers ay imaan doonaan haddaba halkan ayaan calaamadaysanay intaa kadib waxaan halkan ku qoray liquidity resting here liquidity-gi waa la soo jabsaday maadaama liquidity-gi la soo jabsaday waxaynu sugaynaa in halkan daqiiqadaha soo socda ay soo galaan buyers haddaba sidee baan ku ogaaday waxaan ogaaday M5 direction-ka suuqa uu aadi doono ayaan ka ogaaday waxaan markii dambe aan soo furtay M1 lacagta aan ku geli doonane waxay iska noqon doontaa waa iska $5 ma badna waxaan soo furtay M1 waxaan sugay liquidity-geygii in la soo jabsado liquidity resting maadaama la soo jabsaday qaacidadeennuna ay ahayd candle-ka saddexaad ama candle-ka afaraad markii la soo jabsado liquidity resting u qaado dhanka iyo suuqa jihada aad u saadaalisay haddaba aniga jihada aan u saadaaliyay waxay ahayd uptrend candle-kii koowaad ay soo jabsaday waa iska sugay candle-kii labaad soo jabsaday waa sugay it is okay candle-ka saddexaad inaad ku qaadatid maxaa yeelay waxay ku noqonaysaa sniper entry ayay ku noqon doontaa haddii aad ka qaadatid candle-kaaga saddexaad after breakout liquidity resting-kaaga wabacdeen haddana waxaan sugay confirmation-kaasoo ahaa in suuqu uu isiiyo at least another candle kale maadaama breakout-kan uu yahay breakout aad u weyn candle-kii afraad ayaan waxa u qaatay dhanka iyo uptrend ayaan u qaatay wabacdeen sidan ayaa dhacday laakiin halkan waxaan ku qoray third candle is also sniper entry ayuu ku noqon karaa candle-ka saddexaad maxaa yeelay 4 daqiiqo ayaan trade garanaynaa candle-kan hadda saddexaad haddii uu ka bilaabo lahaa 1 2 3 4 waxay inoo noqon lahayd entry aad iyo aad u qurux badan walow haddaba ay tahay entry aad iyo aad u qurux badan halkan waxaa imaaday laba candle labadan candle waxay calaamad u yihiin in suuqu jihadiisa ay sii socon doonto oo ay sii socon doonto dhanka iyo uptrend walaalow haddii aad fahantay aniga xaqiiqdin iska dadaal hal qaacido diiradda saar focus gareey hal qaacido halkan qaacido ayaan waxaan daraasaynay ku dhawaad 1 year haddaba adigani sidoo kale samey suuqan waxa u baahan tahay deganaan taxliilin aad u degan sidoo kale intoodna tradeskaaga ha badinin maxaa yeelay kulama tradeskaaga aad badisid waa kulama hungurigaaga u bato hungurigaaga ha badinin please waxaan idin rajaynayaa horumar intaasina waxay ahayd talo walaaltinimo waxaan idin rajaynayaa sanad qurux badan 2023 iyo new way of trading bye warsan iyo salaam janaalka la gareeya